Hallow, maanta waxaan diiradda saaraynaa jasiiradda xornimo-doonka ah ee Taiwan. Weligaa ma maqashay waddan la yiraahdo Taiwan, balse caalamku u yaqaan gobol ka mid ah waddanka Shiinaha. Qaramada Midoobayna aan ka haysan xubin buuxda, balse dad aad u horumarsan oo xaqiraad ku socoto. Annagoo ka hadli doono taariikhda jasiiraddan oo magaceeda hore loo yaqaanay Formosa oo ay u bixiyeen gumaystayaashii Holland iyo Isbaanishka. Taiwan waa dal madax bannaan oo xukunkiisa cidna la maamulin, laakiin aan xubin ka ahayn Qaramada Midoobay. Dunida caalamkuna waa aqoonsan tahay gobol ka mid ah waddanka Shiinaha, laakiin xaqiiqda jirta ayaa waxay tahay in ilaa hadda Shiinuhu kor ka xukumayo waddanka Taiwan, isagoo doonaya inuu afgambi military ku soo celiyo jasiiraddan gooni u goosadka ah. Haddaba waa sidee xaalka waqti xaadirkan ka jira gudaha waddanka Taiwan? Dadka Taiwanese-ka ah waa dad aaminsan inay xor yihiin, kana mid ahayn dalka China. jasiiradda Taiwan waxay dhacdaa bariga qaaradda Asia. Magaca rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Taiwan waa Republic of China, Jamhuuriyadda saxda ah ee dalka China, halka China iyaduna uu magaceeda rasmiga ah yahay People Republic of China. Taiwan iyo China labaduba waxay isku haystaan in midba midka kale uu yahay Jamhuuriyadda saxda ah ee dalka China, iyadoo aysan meesha ka marnayn in ay Taiwan doonayso madax bannaani iyo inay ka go'do dalka China. Markii la eego dhanka xukunka iyo madax bannaanida, Taiwan cidna uma taliso. Dad ayaa aaminsan in Taiwan uu xukumo China sida caadiga ah, laakiin xaqiiqda jirta ayaa waxay tahay in Taiwan ay leedahay haweeney madaxweyne u ah, taasoo magaceeda la yiraahdo Tsai Ing-wen. Haddaba su'aashu waxay tahay, xagee buu ka soo bilowday dagaalkan u dhexeeya Taiwan iyo China? Qisadan madhamaatada ah ayaa waxay ka soo bilaabatay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalka Shiinaha, kaasoo bilowday taariikhdu markay ahayd Agoosto 1927. Dagaalkaas ayaa u dhexeeyay labadii xisbi ee la kala dhihi jiray Nationalism, xisbiga wadaniga ah ee China ee uu hogaaminayay nin la oran jiray Chiang Kai, iyo xisbigii kale ee la oran jiray Communist ee uu hogaaminayay nin la oran jiray Mao Zedong. Waqtigaas waxaa dagaal kula jiray Shiinaha boqortooyadii Japan. Xaaladdu waxay ahayd markaas in labadan xisbi ee Shiinayska ah ay dhanna ayagu iska dagaalayaan, dhanna iskaga difaacayaan boqortooyadii Japan ee waqtigaas dunida awoodda ku lahayd. Dagaalka ayaa si joogto ah u socday intii u dhaxaysay sanadihii 1945 ilaa 1949. Cadawtinimadii ugu weyneed ee labada dhinac iyo dagaalkii ayaa soo idlaaday sanadu markay ahayd 1950. kadib dagaal ay naftooda ku waayeen malaayiin Shiinays ah. Kadib dagaalkaas waxaa ka dhashay noo kala qaad kabaha. Dhulweynihii Shiinaha wuxuu noqday laba dawladood oo la kala dhaho Jamhuuriyadda Taiwan iyo Jamhuuriyadda China. Haddii aan inii kala macneeyo labadan xisbi, xisbiga koobaad oo ah People Republic of China loona soo gaabsho PRC waa Jamhuuriyadda China, halka xisbiga kale la dhaho isagana Republic of China loona soo gaabsho ROC waa Jamhuuriyadda Taiwan. Dagaalkaas kadib waxaa ilaa hadda ka dhex socdo Taiwan iyo China dagaalkii qabowga oo la isku adeegsanayo nidaam diblomaasi iyo cadaadis dhaqaale. Waxaa jira 3 qodob oo ka dhaxaysa labadan dal iyo 3 qodob oo kale oo aan ka dhaxayn. 3 ka dhaxayso ayaa waxay tahay transportation, nidaamka isku socodka gaadiidka; 2 postal, nidaamka isgaarsiinta; 3 trade, iyo nidaamka ganacsiga iyo isdhaafsiga badeecada. 3 aan ka dhaxayn ayaa waxay tahay no contact, wax xiriir hoosaada; no compromise, iyo wax tanaasula oo ay Taiwan Shiinaha uga mid noqonayso; iyo no negotiation, wax wada xaajooda. Dagaalkan ayaa wuxuu salka ku hayaa is-afgaranwaa fikradeed ideological, kaasoo dabada ku sii riixaya waa kuma Chinese-ka saxda ah ee la dagaalamay gumaystayaashii reer galbeedka ee Spain iyo Holland. Dagaalka xooggiisa ayaa dib u bilowday 1946 markay dhamaatay cadawtinimadii Shiinaha kala dhaxaysay Japan 1945. 4 sano kadib markay Jamhuuriyadda Shiinaha ay damacday inay qabsato dhulweynaha Shiinaha oo dhan, laakiin xisbigii Shuuciga ahaa ee Taiwan ayaa arrintaasi diiday, isagoo difaac ka qotay jasiiradaha kale ah Benchu, Quemoy iyo Matsu. Ilaa hadda oo ah 2019, khilaafka China iyo Taiwan wuxuu u socdaa sidiisii. Sanadkii la soo dhaafay ee 2018 ayuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay inay Taiwan tahay gobol ka mid ah dhulweynaha Shiinaha oo uu doonayo hadday wada hadal wax ku dhamaan waayaan inaysan meesha ka marnayn tilaabo military.
isagoo sheegay in Shiinuhu uusan aqoon kaliya sida gacmaha loo tumo ama sacabka loo tumo ee uu yaqaan sida loo dagaalamo. waxaa hadalkiisa durbadiiba ka soo jawaabay haweeneyda madaxweynaha u ah dalka Taiwan, Tsai Ing-wen, iyadoo tiri Taiwan waa dal madax bannaan, mana aha dal goodin wax looga qaadi karo, ee Shiinuhu ha joojiyo goodinta uu ku hayo dalka Taiwan. haddii aan si kooban uga hadlo dalka Taiwan waxyaabo ku saabsan. dalka Taiwan tirada dadkiisu waxay gaarayaan 23 milyan oo qof. dhaqaalaha waddanku wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka warshadaha iyo beeraha. caasimadda waddankuna waa Taipei, waana magaalada ugu dadka badan. dhulka uu ku fadhiyo waddanka Taiwan waa 36,197 kilomitir square. dakhli sanadeedka waddanku waa 1.250 trilyan. Taiwan waxay ka mid tahay waxa lagu magacaabo afarta shabeel ee dhaqaalaha Asia ama afarta dhaqaale, waxayna kala yihiin South Korea, Hong Kong, Singapore iyo Taiwan. afartan ayaa waxay yihiin afarta wadan ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Asia. sidaas ayadoo ay tahay ayaysan Taiwan haysan aqoonsi qaramada midoobay. ilaa haddana waxaa lagu tiriyaa gobol ka mid ah China. Taiwan waxay leedahay 2 milyan oo ah ciidanka militariga ah, kuwaasoo diyaar ku ah goobaha dagaalka. qarashka ku baxa ciidankaasna waa 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. dadka Taiwan 1.5% ayaa ah faqiir, inta kale waa dad dabaqada sare ah. waxaa la sheegaa 97% dadka Taiwanese-ka ah inay isticmaalaan aaladda Facebook, waana waddanka ugu badan caalamka ee laga isticmaalo aaladda Facebook. waxaan filayaa inaad maanta wixii ka dambeeyo aad wax badan ka ogaatay waddanka Taiwan. fadlan adiguna noogu reeb raadkaaga dhanka hoose, comment, like, share, lana wadaag aragtidaada saaxiibadaada kale. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. mahadsanid. waa walaalkiisa ka Cabdi Yaasiin.